reer ka mid ahaa dadka ay abaartu saamaysay oo u soo guuray meel u dhow degmada Sheekh ayaa waxaa ka gubtay xoolihii yaraa ay abaarta kala soo baxsadeen. reerkan oo u soo guuray deegaanka Gooldhaxan oo ku dhawaad 10 kiiloomitir dhinaca galbeedka kaga beegan degmada Sheekh ayaa waxa gabi ahaanba ka baaba'ay hoygii ay xoolaha ku xoreyn jireen iyagoo ay halkaasi ku gubteen intii badneed xoolihii ay haysteen. dadka deegaanka ayaa sheegaya in gurigu gubtay xilli habeenimo isla markaana aanay ka agdhoweyn wax gurmad ah taasina ay sababtay in inta badan xoolihii ay ku dhamaadaan halkaasi. guriga ayaa sidoo kale la sheegay in ay joogeen laba haween ah oo xanuunsanaya hase yeeshee ay iyagu naftooda kala badbaadeen inkastoo dhaawac soo gaaray haweeneydii guriga. wararka ayaa intaasi ku daraya in goor dambe ay soo gaadheen dadka deegaanka isla markaana ay meesha ka gureen intii harsanayd iyo weliba aqalkii reerka. Marwo Faadimo oo ka mid ahayd goobjoogayaasha ayaa ii sheegtay in dab raashin saarnaa uu dhinac ka qabsaday guriga isla markaana si degdeg ah ay dabayshu ugu fidisay intii harsanayd ee guriga. halkaas dhinacaas caruurta raashin loo saar ee dambil yar baa qabsatay halkan in la xigto dabadeedna wuxuu ku booday xeradii buu qabsaday xeradii kolkuu qabsadayna waa ka xoolii ku gubtay dabaysha horisay xagana taasoo kale inaga hayso dabayshina bulbulo cidina ma jooginayna taayana xanuunsanayaa joog gacal badan baa noo yimid dabkii oo ku dhamaaday gurigii ayaa dadkuna soo gaadhay dhaawacna waa sadano halkaasuu joogay halkana ari sodoneeyo dhowdhow sodoneeyo abaa ku baktiyay ilaa meel walba. inkastoo aanay degmada Sheekh lahayn wax dabdamis ah haddana waxaa meesha subaxnimadii tegay ciidanka booliiska si ay u soo indha-indheeyaan xaaladda. Saciid Axmed Tumrayse Sheekh.